السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا هي قالي سو دواده walaashin ismo oo maanta idin wada muuqaal cusub muuqaaladeena hore ka duwan kalluunka aad arkaysan ma insha Allah qalan doona qaabkan u qalo iyo maxaan ku dhaqa qaabkan u googooyo insha Allah ayaan jeclaystay inaan la share gareeyo kalluunka dhinacna waan ka iibiyo dhinacna waan ka isticmaalaa marka waxaan jeclaystay inaan idin soo bandhigo marka insha Allah ta'ala maanta Ilaahay qadaray inaan idin soo bandhigo marka daawasho wanaagsan baan idin leeyahay isagoo diyaar u inaad iibsataa dhici karta marka qaarkood xabad iska soo iibso oo iska googoodo talaagada iska rido marka qaab yar fudud maxaan ku dhahdaa ayaan insha Allah ku sheegi doonaa aad u googoosan karto marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada maanta kalluunka darayga ah ayaan insha Allah googoosan doonaa marka waxaan leeyahay muuqaalka ku soo dhawaada insha Allah indhamaantiina inta la idin sheegi maayo subscribe ta like ta iyo comment-igu waa dhankiina intaasna isku sheegi mayno marka waxaan leeyahay soo dhawaada saad aragtaan xabad kalluun oo weyn ba halka inoo taala kalluunkaas oo aragtaan waa kalluun aad iyo aad u weyn marka xabaddan doona maanta inaan qalano dumarka qaar baa ka dhadhacsan maxaan ku dhahdaa ma qali kartaan kalluunka marka aad iyo aad iska fudud yahay marka daawasho wanaagsan waxaan sameynayaa waxaan soo qaatay imika faash daragtaanba gacmahana waan soo xidhay marka insha Allah waxaan bilaabi doonaa inaynu kurka ka goyno caloosha banaan ka soo dhigno oon kala farsamayno marka waxaan ka bilaabi doonaa imika kurkan ka goyn doonaa marka halkaasaan ka bilaabayaa daragtaanba labada gacmood kalluunkaas ka leh marka labadiisa gacmood ayaan insha Allah ku goyn doonaa oo raacin doonaa marka goynino marka halkaas aad ku beegaysaa gacmihiisa yar ayaad ku beegaysaa oo ku goynaysaa marka halkaas aad ka bilaabaysaa daragtaanba bismillah markaan bilaabayaa bisinka u qabo waad aragtaan wax aad iyo aad iskaga fudud weeyaan wax aad maxaan ku dhahdaa u dhib badan maaha marka insha Allah waxaan jeclaystay inaan idin soo bandhigo qaabkan kalluunka u googooyo maxaan ku dhahdaa marka dhinaca kalena sidaas si leeg baad u gogoynaysaa si yar fiiye ayaad u jaraysaa marka labada gacmood ee kalluunku iska leeyahay ayaad ku beegaysaa qiyaas ahaan waa sidaas marka waxaan sameynaynaa calooshiisu horta aan idin sheego intaan goyn inta dhexda calooshiis kaga jirta calool weyn ma laha intaas kaga jirta marka intaasan isna soo goynayaa waan soo goynayaa calooshana waan ka soo dhex saari doonaa waan soo jeexay marka ilaa inta dhegta dhigihiisaas labadiisa dhagood ayaa isku beegaysaa inta calooshana wada aragtaan saasaan u soo gooyay caloosh wali way ku dhex jirtaa wali kama soo saarin wada arki doontaan marka imka dhegtaas labadiisa dhagood iyo kurka inta yar hore caloosha waa isla wada goynaysaa dhinacii kale wada aragtaan imka waxaan eegayaa inuu go'ayo wali in yar baa ka dhiman halka yar sare ee dhakadana laf yar adag ku leeyahay lafta waa inaad si fiican iskaga jirtaa haddii kale kuma kala go'ayo kurka iyo inta kale kuma kala go'ayso marka imka waxaan eegayaa inuu jabayo marka may wali in yar baa is haysata halka yar sare ayuu laf yar adag ku leeyahay lafta yar adag baa loo baahay inaad ka dhex jaarto marka wada aragtaan waa aniga ka fujiyay imika uu kala fuqay waan kala saari doonaa calooshiisii iyo intii kurkii ayaa israaci doontaa maasha Allah waa qaab aad iyo aad maxaan ku dhahaa u fudud marka aad samaysan karto wada aragtaan calooshiisii intaas weeyaan kadib caloosha halkan ka soo saarnay ayaynu nadiifin doonaa oo iska nadiifinaysaa inta yar ku hadhadhay ayaad ka soo guraysaa inta kale waa jiirkii maxaan ku dhahaa kalluunku lahaa wax kale ma laha inta yar caloosha weeyaan intana waa iska soo nadiifinaysaa wada aragtaan maxaan ku dhahdaa dhiiga yar fadhiistay inta caloosha gudaha ku leeyahay waana si fiican iska soo nadiifisaa oo iska soo wada gurtaa ما شاء الله كلونك آدي أدبو في عين عيالك وقف في عينه يعني عديك لفتها أنت وقف في عين هذا هو حاملات هاي آدي أدبو وقف في عين هذا هو لقلات هاي أدبو وقف في عين وبس كأدبو وقف في عين هي اللي بكأسها كبروتين بدن آدي أد محن كلا كلونك وين هذا استماشى مركز كسو يبصح حبت محن كلا إسكا قصة ثلاجة إسكا جريدو مركز إمك هذا ركتان على شو صون في أنت دكذا أيان كشري الناس وصف في عين إنه قوقو أنت هذا كذا سري إنه هدي
aragtaan inta dhakadana saasaan u jaraya waaw waad aragtaa inta waan ka saaray imika waxaan sameyn doonaa waan calooshiisii madaxiisa iska qaadnay maxaan ku dhahdaa waxaan soo qaatay sixnigaan ku googoynay maxaan ku dhahdaa ayaan soo saaray waan soo nadiifiyay maraad iska nadiifinaysaa wixii dhiigga waxaas bas imika isagoo nadiif ayaan soo saarnay kurkii caloosha waan iska qaadnay marka imika waxaan sameyn doonaa waan googoyn doonaa hilibkii oo khaliya noo soo haray kalluunka midba midku ka weyn yahay ayuu ka jiir badan yahay midka waa mid wada jiira lafa badanna ma laha marka inta yar kurka horta ayaa marka hore iska jaraya waa wada jiid maxaan ku dhahdaayay marka dambe ayaan sii kala goyn doonaa horta intaas si weyn ayaan u goynayaa wada aragtaan waan sii kala goynaysaa lafta yar dhexe un buu leeyahay kalluunkan magaciisa horta aan idiin sheego sorry waxa la toonaha aad iyo aad buu ugu macaan yahay kalluunada kale aad buu uga jir badan yahay aad buu uga dhadhan macaan yahay hilibkan uu eegyahay waa cas yahay hilibaan moodaa marka toona la yiraahdaa kalluunkan wada aragtaa marka waad goosanaysaa kolba intaad u baahan tahay ee maalinta aad karsanayso ayaad soo goosanaysaa kadib talaagada iska gardinaysaa wada aragtaa si yar balbalaaran ayaan u googoynayaa dadonto waad ka yeeraysan kartaa laakiin qaabka ugu quruxda badan leh kalluunka loo jarjaro ayaan u jarjaraya wada aragtaan kalluunka imika muddo dhowr bilood waan ka shaqeynayay meherad yar kalluun aan haystaa marka aad iyo aad marka imika gacanta ay fadhiisatay wax weyn ilama aha marka dumarka qaar baa aaminsan inaad kalluunka wax weyn moodaya aan la googoyn karin laakiin wax weyn maaha wada aragtaan saasaan u googoynaya marka imika in yar ayaan ka jari doonaa qaybta kale talaagadan ayaan ku ridi doonaa laakiin idinkaan idin tusayaa saasaad u gogosanaysaa waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa lafa badanna ma laha lafta yar dhexe oo keliyata ayuu leeyahay kalluunkani maasha allah wada aragtaan aad iyo aad waa kalluun daray ah oo maxaan ku dhahdaa aan laga sheekeyn karin oo proteinkiisa iyo waxaan ku wax walba kalluunku uu leeyahay maxaan ku dhahdaa waad garanaysaa kalluunka aad buu fiican yahay saasaan u soo wada maxaan ku dhahdaa aan u soo gogoy qaybtaas marka inta kale talaagada ayaan iska gardin doonaa marka waxaan idin leeyahay inaad ka wada faa'iideysan doontaan baan rajeynayaa kalluunku waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa waxyaalaha fiitamiinada badan laga helo ayuu ka mid yahay mar walba dhakhaatiirtana ay nagu dhiirigeliyaan marka waxaan jeclaystay inaan idila sheergaray maanta qaabka aan u googooyo aan u qalo waxa maxaan ku dhahdaa waxa dhacda maxaan ku dhahdaa badanka isagoo safaari garaysan amba diyaarsan u soo iibsanaa soo maaha marka qaarkood aad meelaha badaha iska tagto amba maxaan ku dhahdaa dukaamada iska tagto mid weyn waa iska soo gadan kartaa oo jilmad intaad ku soo gadato waa iska qalan kartaa wax weyn ma aha marka waxaan leeyahay maxaan ku dhahdaa insha Allah inaad ka wada faa'iideysan doontaan baan rajeynayaa maanta waxaan jeclaystay inaan idila sheer gareeyo maxaan ku dhahdaa xibada kalluunka ah maxaan ku dhahdaa qaabka aan u googooyo insha Allah qaab kale aan u googooyana insha Allah wadaad jeclaystaan waan idila soo sheer gareyn doonaa kalluunka aad iyo aad baan anigu maxaan ku dhahdaa u jecelahay oo mar walba aan isticmaalaa hilibka waxaan ka badanahay waa kalluunka marka kalluunkii wada aragtaan qaabka quruxda badan la ayaan u googoosanay maxaan ku dhahdaa insha Allah waxaan idin leeyahay mintaynu maxaan ku dhahdaa muuqaalka xiga aan iskaga iman doono dhamaanteen idinkoo nabad ah iyo anigoo nabad ah waxaan idinkaga tegayaa sida iyo kulanti dambe oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu